kulanti wacan daawada waa mar kale iyo muuqaal kale. Muuqaalkani waxaan kaga hadlayaa qalalaasaha Itoobiya, walaaca is soo taraya ee laga qabo midnimada dalkaas iyadoo dagaalka Tigray uu sii xoogaystay. Walwal iyo sidoo kale Itoobiya miyay ka badbaadi kartaa burbur? Warbixintani iyo muuqaalkani ayaan ku soo koobi doonaa daawade. Magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed, bartana waa xogta qarsoon. Waxaan kaa codsanayaa inaad ugu soo biirto. waxaa jira walaac kordhayo oo ku saabsan midnimada Itoobiya iyadoo colaadda dhanka waqooyi ee gobolka Tigray ay ka sii darayso. Dagaal dheer oo 9 bilood u dhaxeeyo xoogagga fallaagada Tigray iyo militariga Itoobiya ee xulafadooda ayaa badanaa wax uu ka kooban yahay Tigray lafteeda, laakiin dagaalku wax uu ku fidayaa gobolka dariska la Amxaarada iyo Canfarta. tani waxay ka dhigan tahay in culeysku uu ka fududaanayo xoogagga Tigrayga oo guulo la taaban karo ka gaaray dhul beereedka oo ay ka mid tahay qabsashada caasimadda gobolka Makalla bishii Juun kadib markii ciidamada Itoobiya isaga baxeen. Dowladdan ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah. Waa calaamad muujinaysa in qalalaasaha Tigray uu ka sii darayo, laakiin tana sinaba ma ahan dagaalka kaliya hadda ka socda Itoobiya. waa dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika oo ay ka jiraan xiisado qowmiyadeed. Sanadkii 1994 waxaa la soo saaray dastuur cusub kaas oo abuuray gobollo taxana oo ku salaysan isir ahaan oo loola jeedo in wax laga qabto dhibaatada dowladda dhexe. ilaa 2018 isbahaysiga talada haya waxa uu badnaa ururka TPLF, waxaana lagu dhaliilay inay burburiyeen cid kasta oo ka soo horjeeda. kadib markii Abiy Ahmed oo ka soo jeeda qowmiyadda ugu weyn Oromada uu noqday ra'iisul wasaaraha 2018 wuxuu sameeyay tallaabooyin isdaba joog oo go'aysnimo leh si loo afjaro caburinta dowladda. laakiin xorriyaddani waxaa weeliyay qarax wadannimo iyadoo kooxo kala duwan ay dalbanayaan awood iyo dhul dheeraad ah. waxaa jira dagaal qowmiyadood oo aad u fara badan ayuu yidhi Rashiid Cabdi oo qabiir fadhigiisu uu yahay Nairobi oo ku xeeldheer amniga geeska. meesha ugu kulul gobolka waa Benishangul Gumuz ee galbeedka oo xuduud la leh Suudaan iyo Koonfurta Suudaan, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay ifafaalo joogto ah. ilaa 200 oo qof ayaa lagu xasuuqay weerar ka dhacay gobolka bishii December. toddobaadkii hore mas'uuliyiinta gobolku waxay sheegeen in ciidamada ammaanka ay dileen in ka badan 100 dagaalyahan oo ka tirsan koox hubaysan oo ay ku eedeeyeen weerarada isir ahaan huriyay dalkaas. waxaa jira halis kale oo ah deganaanshiyaha muranka soodinta taariikhiga ee u dhaxeeya Suudaan iyo Itoobiya oo ku saabsan dhul beereedka barwaaqaysan ee dhulka loo yaqaan Al-Fashaga, waxaana la sheegayaa in labada dowladood labadaba ay sheeganayaan. murankani waxa uu keenay inay soo fadhiyaan labada ciidan xilli colaaddu ay ka taagan tahay Tigray. waxaa jirta suurtagalnimo inay sii korodho, laakiin weli ma aysan dhicin. maalin qura toddobaadkii hore 100 qaxooti oo ka soo jeeda qowmiyadda yar ee Ghamnad ee Itoobiya ayaa u qaxay Suudaan si ay ugu baxsadaan dagaalada Amxaarada Itoobiya oo xuduud la leh Tigray. warbaahinta Suudaan ayaa sidaas warisay. mas'uuliyiinta gobolka Amxaarada ayaa 10kii sano ee la soo dhaafay ku eedeynayay dalalka dariska la Tigray inay hurinayaan colaadda qowmiyadeed, taas oo dadka Tigray ay diidaan. ku darso kuwa waxaa ka soo bilowday muran muddo soo jiitamaya u dhaxeeya gobollada Soomaalida iyo Canfarta ee Itoobiya oo si khatar leh ugu dhow xadka Djibouti iyo kacdoona sii kordhaya oo ka dhan ah militariga Itoobiya oo ku socda gobolka Oromiya. waxaana ay sahlan tahay in la arko sababta Itoobiya u ilaalinayaan walwal badanna uu hayo. Itoobiya waxay soo martay wareegyo taariikhi oo xoog leh kadibna aan khatar ahayn, waxayna ku jirtaa mid ka mid ah waqtiyadaas aadka uga halista badan ayuu yidhi Alex Duval oo ah agaasimaha fulinta World Peace Foundation oo xaruntooda ay tahay Mareykanka. qaar ka mid ah khubarada Itoobiya iyo hadda waxay ka hadlayaan burbur dowladeed oo suurtagal ah. ma aha wax la dafiri karo in Itoobiya ay ku sugan tahay xilli xiisad jirta ayuu yidhi. mid ka mid ah sida uu u socon doontana dhibaatadani waxay ka jirtaa Tigray iyo sidoo kale qodobo badan oo dagaal qowmiyadeed ah. qofna ma hubo, laakiin waxay ku jirtaa xiisad aad u weyn, waxaana jirta halis weyn oo ah inay Itoobiya burburto ayuu yidhi. laakiin aqoon-yahan ka tirsan jaamacadda Gondar ee Itoobiya Manjele Manzarad ayaa sheegay inuusan rumaysnayn in Itoobiya qarkay u saaran tahay burbur dowladeed. xitaa ma haboono in lagu doodo arrintaas. marka hore waxaynu leenahay dowlad shaqaynaysa oo dalka maamusha marka laga reebo Tigrayga ayuu yidhi. qalalaasaha ka jira Tigrayga dhab ahaantii waxa uu xoojiyay isku duubnida qaranka ee gobollada iyo qowmiyadaha kale,
kuwaas oo isku soo baxay si ay u taageeraan dowladda iyo militariga ayuu raaciyay Minjele. ciidamada Tigray ayaa sheegay inaysan joojin doonin dagaalka ilaa dhowr shuruudood uu buuxiyo. Abiy tani waxaa ka mid ah xabad joojinta iyo sidoo kale joojinta go'doominta dowladda federaalka ay saartay Tigray iyo bixitaanka dhammaan ciidamada iska soo horjeeda ciidanka Itoobiya, xoogagga gobolada kale ee Itoobiya iyo Eritreyaanka ka barbar dagaalamaya. xayiraadda waxaa loola jeedaa dowladda federaalka oo xirtay dhammaan adeegyada korontada, maaliyadda, isgaarsiinta ee Tigray tan iyo markii Makalle ay ka baxday bishii Juun. hay-adaha caalamiga ayaa sidoo kale waxaa ku adkaatay inay helaan gargaarka saa'idka loogu baahan yahay halkaas. General Zetkan Gebretenzi ayaa u sheegay barnaamijka News Hour ee BBC-da in ciidamada Tigray ay sii wadi doonaan dagaalka oo ay ku jiraan gobolada Canfarta iyo Amxaaradan ay weerarayaan ilaa laga gaaro shuruudaha xabad joojinta. dhammaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee waqtigan waxaa lagu maamulaa laba ujeedo waaweyn. mid waa in la jibiyo go'doominta, midka labaadna waa in lagu qasbo dowladda inay aqbasho shuruudaha iyaga xabad joojinta kadibna la raadiyaa xal siyaasadeed ayuu yidhi. generaalku wuxuu intaas ku daray in dadka Tigray aysan u jeedin in ay Itoobiya siyaasad ahaan ku xukumaan sidii hore, taas beddelkeed waxay rabaan in Tigraygu ay ku codeeyaan aftida ismaamulka. wasiirka dimuqraadiyiinta Itoobiya Zedek Abraha ayaa waxa uu sheegay in fallaagada Tigray ay leeyihiin dareen been oo awood ah lagana saari doono tuulo kasta oo gobolka ka mid ah markay dowladda uu ka dhammaado dulqaadka. Zedek ayaa beeniyay sheegashada fallaagada ah in xanibaad lagu hayo Tigray, waxaana uu sheegay inay tahay waajibka dowladda inay hubiso isgaarsiinta iyo sidoo kale gargaarada bini'aadanimo. calaamada colaadda waxay ku soo beegmaysaa dagaalyahano kale. dhalinyaro Itoobiyaan ayaa isugu soo baxay isu soo bax ka dhacay caasimadda toddobaadkii hore ayagoo ku jawaabaya baaqii hogaamiyaha gobolka ah inay ku biiraan dagaalka ka dhanka ah jabhadda Tigray-ga. iskahorimaadkaas waxa uu sababay dhibaato bini'aadanimo aad u weyn. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta UNICEF ayaa jimcihii sheegtay in ka badan 100,000 oo carruur oo ku nool Tigray ay la kulmi karaan nafaqa darro halis ku ah sanadka soo socda, halka kalabar dumarka uurka leh iyo kuwa naas nuujinaya ee laga baaray gobolka ay nafaqa darro ba'an hayso. khubarada cuntada ayaa sheegaya in 400,000 oo qof oo Tigray ah ay la kulmeen heerar ba'an oo gaajo ah. dhammaan wadooyinka gargaarka taga ee Tigray ayaa xiran marka laga reebo hal wado oo ka timaada gobolka Canfarta oo dhawaan lagu weeraray kolonya raashin ah sida lagu sheegay, waxaana la sheegay inay weerareen maleeshiyaadka taageersan dowladda. maleeshiyaadka Tigray ayaa sheegaya inay rajeynayaan inay xoog ku furaan waddo cusub oo gargaar ay sii marsiyaan soona kana imaanaysa Suudaan, ayagoo ay ku adkaatay ciidanka Itoobiya iyo ciidamada Amxaarada inay halkaas tagaan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay 5.2 milyan oo qof oo ku nool Tigray ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo, halka dagaaladii u dambeeyay ee ku fida gobolka Canfartan ay sababeen in kumanaan qof ay halkaas ku barakaceen oo ay aad ugu baahan yihiin cunto iyo hoy. dhowrkii maalmood ee soo dhaafay dadaalada diblomaasiyadeed ee wax loogu qabanayo dhibaatooyinka badan ee ka jira Itoobiya ayaa sare u kacay, iyadoo wadahadalladu ay ahaayeen kuwa albaabada ay u xiran yihiin. Meta Biden oo ka tirsan hay'adda Sun Research waxa uu shaki ka qabaa in xal siyaasadeed laga heli karo marxaladan, gaar ahaan intuu taagan yahay khilaafka u dhexeeya labada dhinac. ciidanka Tigray-gu waa inay miisaamaan rajada laga qabo wadahadal siyaasadeed iyagoo qiimeynaya halista jirta. dhinaca kale, Abiyna ma muujinayo dan ama isfahan u baahan in laga galo wadahadal siyaasadeed. Itoobiya miyay ka badbaadi kartaa burbur? waa su'aasha la isweydiin doono. daawade nabadgelyo.